Denmark waa waddan ku yaalla waqooyiga Yurub, kana mid ah waddamada la yiraahdo Scandinavian-ka. Bad ahaan dalkani waa 43,090 kiiloomitir. Kaalinta 133aad ayuuna kaga jiraa marka la fiiriyo baaxadda waddamada caalamka. Waa mid ka mid ah waddamada ugu yar qaaradda Yurub iyo guud ahaanba caalamka. Dalkan aynu ka hadlayno ee Denmark waxaa bad ahaan ka weyn gobolka Galgaduud ee dalka Soomaaliya, halka gobolka Bari ee isla dalka Soomaaliya uu 2 jeer ka weyn yahay dalkan. Dhaqaale ahaan dalkan wuxuu ku jiraa kaalinta 35aad, waxa uuna haystaa ilaa 400 oo bilyan oo dollar. In ka badan 400 oo jasiiradood ayaa ku yaalla badda waqooyi ee Denmark, waxaana jasiiradaha ugu caansan dalkan ka mid ah jasiiradda barafleyda ah ee Greenland. Bulsho ahaanna ay ku nool yihiin ku dhowaad 60,000 oo qof. Denmark wuxuu xuduud la wadaagtaa Jarmalka oo dhanka koonfureed kaga aadan, Sweden oo ka xigta dhanka bari, sidoo kalena dhanka galbeedka badda Baltiga ayaa ka saaran, halka dhanka waqooyina ay ka xigto badda loo yaqaano North Sea. Dhulka Denmark inta badan waa dhul fidsan iyo buuro aan badnayn, kaasoo leh muuqaal dabiici ah oo qurxoon. Denmark waxay leedahay xeeb dheer oo leh harooyin badan iyo gacan biyoodyo, mana jirto meel Denmark ka mid ah oo badda u jirta in ka badan 67 kiiloomitir. Waana sababta waddankani uu yahay mid biyaha daris la ah. Inkastoo ay Denmark ku taalla waqooyiga Yurub ee inta badan barafku ka da'o, biyaha diiran ee qulqulka badaha ku hareeraysan ayaa cimilada ka dhiga mid xilliyada qaar dhexdhexaad ah. Dadka Denmark waxaa loo yaqaanaa Danish, waa Scandinavian-ka waqooyiga Yurub, kuwaasoo badankood yihiin dadka leh indhaha buluugga ah, kuwaasoo ka soo jeeda qaaradda Yurub. Waa dad dhaadheer muuqaal ahaan, halka kalarka indhahooda laga dareemayo midabka buluugga ah. Dhinaca koonfureed ee dalka, dadka qaar ayaa asal ahaan ka soo jeeda waddanka deriska la ah ee Jarmalka. Danishku waxay leeyihiin mid ka mid ah heerarka nololeed ee ugu sarreysa adduunka. Qiyaastii hanti dhan 56,000 oo dollar ayaa celcelis ahaan sanadkii soo gasha qofka u dhashay dalkani Denmark. Boqolkiiba 85 dadka dalkani waxay ka tirsan yihiin kaniisadda qaranka ee Denmark, diin ahaanna waxay aaminsan yihiin Kirishtanka. Magaalada caasimadda ah ee Copenhagen waxaa ku nool in ka badan 1 milyan oo qof, waana magaalada ugu weyn ee caasimaddu ah dalka. Sambuuska korka ka furan ee loo yaqaano Smørrebrød waa cuntada ugu caansan dalkan. Sambuuskani wuxuu ka samaysan yahay burcadka loo yaqaano farmaajaha, rootiga iyo qudaar. Dadka u dhashay dalkan badanaa waxay raacaan baaskiilka iyagoo u isticmaalaya gaadiid ahaan. Marka la joogo Denmark, baaskiilku wuxuu ka muhiimsan yahay gawaarida caadiga ah. Dhulka Denmark qaybta ugu badani waa dhul xeebaha ku teedsan, sidoo kale wuxuu leeyahay dhulal cagaaran oo doog ah. Xayawaanada ugu badan ee ku nool Denmark waa deerada cas. Si la mid ah halkan waxaa laga heli karaa 300 oo nooc oo shimbiro ah xilliga xagaaga. Noocyo badan oo balanbaalisooyin kala duwan ah ayaa iyana laga heli karaa Denmark. Denmark waa boqortooyo dastuuri ah. Boqoradda Margrethe II ayaa dalkan boqorad ka soo ahayd laga soo bilaabo 1972 ilaa laga soo gaaro 2024 oo iska casishay xilkan, waxaana jagadaasi ku guuleystay wiilkeeda Frederik. Inkastoo boqorku yahay madaxa ugu sarreeya dowladda, ra'iisul wasaaruhu wuxuu mas'uul ka yahay howlaha shaqo ee dalka. Ra'iisul wasaaraha haatan dalkan hogaaminaya waxaa loo yaqaanaa Mette Frederiksen. Baarlamaanka Denmark wuxuu leeyahay hal aqal oo la yiraahdo Folketing oo ka kooban 179 xubnood oo la soo doortay. Taariikh ahaan dadku waxay ku noolaayeen Denmark tan iyo qarnigii Stone Age-ka ama waagii dhagaxa. Laakiin waxaa jira caddayn ah in dadku ku noolaayeen halkaasi qiyaastii 50,000 oo sano dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Qarnigii 9aad ilaa 11aad, dagaalyahano ka soo jeeda bulshooyinka loo yaqaano Viking-ka oo ka yimid Denmark iyo waddamo kale oo Scandinavian-ka ah ayaa soo weeraray qaaradda Yurub. Inta badan magaalooyinka casriga ah ee Denmark waxaa la aasaasay xilligii dagaalkii Viking-ka kadib. Denmark, Norway iyo Sweden ayaa midoobay si ay u samaystaan hal xukun oo ku salaysan midowga boqortooyada Margrethe dhammaadkii qarnigii 14aad, inkastoo Sweden ay ka go'day midowga 1523. Dalka Norway ayaa soo xukumayay Denmark ilaa laga soo gaaro 1814. Dagaalkii labaad ee adduunka, dowladihii xilligaasi ee Germany iyo Denmark waxa ay ku heshiiyeen inaan la isweerarin, balse Jarmalku wuxuu weerar lama filaan ah ku qaaday waddanka Denmark sanadku markuu ahaa 1940. Ugu dambeyntii Denmark ayaa dib u heshay xorriyaddeeda sanadkii 1945 iyadoo taageero ka helaysa xulafadeeda UK
USA iyo Midoogii Sofiyeedka.